bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Chelsea oo aqbashay dalabka ay Real Madrid ka soo gudbisay Eden Hazard, Barcelona oo PSG ka doonaysa in ay isdhaafsadaan Neymar iyo Dembele, kulanka weyn ee caawa finalka Europe League ee Chelsea iyo Arsenal u dhaxeeya oo aan xog inkaga hayo maxaa u sababahay in Mauricio Sarri uu xanaaq uga baxay xalay garoonka tababarka ee kooxda Chelsea ay tababarka ku sameynaysay magaalada Baku. Inter Milan oo qarka u saaran ku dhawaaqida Romelu Lukaku. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal saaka aan idinku haya xogta ciyaaraha. Soo dhawaada daawada haddii aad ku cusub tahay boggan fadlan subscribe noo saar page-ka kadibna comment ka bixi akhbaraadka aan ku soo gudbinay. aan ku bilaabay daawadayaal kooxda Chelsea ayaa lagu soo warramaya inay aqbashay dalabkii rikoorka ahaa ee Real Madrid ay ka soo gudbisay ciidiga Chelsea ee Eden Hazard. Madaxweynaha kooxdaasi Roman Abramovich ayaa u sababa leeyahay Hazard oo 28 sano jir ah ayaa hal sano kaga harsan tahay qandaraaskiisa Stamford Bridge, waxaana uu cadeeyay maamulka Chelsea bisha April ee sanadkan in uu doonayo inuu ka wareego Stamford Bridge oo uu wareego Santiago Bernabeu. Xidiga reer Belgium ayaa doonayay in uu ka tago Chelsea laga soo bilaabo 2018, laakiin Mauricio Sarri ayaa ka dhaadhiciyay inuu kooxda sii joogo isagoo u ballan qaaday inuu fasixi doono sanadka xiga. Xayiraadda Chelsea laga saaray suuqa kala iibsiga laba xilli ciyaareed ayaana laga cabsi qabay inay sabab u noqoto in Eden Hazard uu soo ku biiro Real Madrid, inkastoo haatan arrintaasi ay meesha ka baxday. Chelsea ayaa si weyn uga fiirsatay inay ceshato sanad kale oo hor leh inuusan markaasi bilaash uga tagin xagaaga dambe, waana haatan Real Madrid ay ka soo gudbisay dalab qaali ah Eden Hazard. majalada dasan ee ka faaloota arrimaha ciyaaraha ayaa qoraysa in arrintani uu soo dhex galay milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich si uu u hubiyo Hazard inuu ka helo markaa riyadiisa isla markaana uu wareego Bernabeu, waxaana haatan uu ku qanacsan yahay leeyahay Romanku in Hazard aan laga hor istaagin riyadiisa ah inuu ku biiro Real, waxaana ay markaa Chelsea aqbashay dalab 115 milyan oo gini ah oo ay ka soo gudbisay kooxda La Liga ka dhisan ee Real ciyaaryahankan reer Belgium. warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in Chelsea cash ahaan loo siin doono 100 milyan oo gini iyadoo 15 milyan oo gini ay noqon doonto mid ku xirnaan doonta qaab ciyaareedka Eden Hazard uu ku soo bandhigo garoonka Santiago Bernabeu. Hazard ayaa mushaar ahaan waxa uu qaadan doonaa 400,000 oo gini asbuuci oo markaasi ay siinayso kooxda Real Madrid ee ka dhisan magaalada caasimadda ee Madrid. kooxda Barcelona ayaa doonaysa oo ku howlan in ay Neymar Jr dib ugu soo celiso garoonka Camp Nou ee kooxdu ku dheesho isla markaana ay ku bedelato Ousmane Dembele oo ku fashilmay safka koowaad ee kooxda Barcelona. Barcelona waxaa la sheegayaa inay wada hadal kula jirto kooxda Faransiiska ee Paris Saint-Germain iyadoo oo doonaysa inay soo ceshtaan weeraryahankoodii hore ee Neymar Jr isla markaana uu ka garab ciyaaro saaxiibadiisii hore ee Suarez iyo Messi. waxaana arrintaasi la leeyahay waxa qayb ay ka noqon doontaa ama laga qayb dhigi doonaa in Ousmane Dembele uu ka qayb noqdo oo uu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain. majalada RAZ1 ayaa ku warramaysa markaa in kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ay macquul tahay inay arrintan heshiis ka gaaraan isla markaana labada ciyaartooy ay isdhaafsadaan oo Barcelona ay lacag markaasi ku darto Ousmane Dembele. Ousmane Dembele oo tan iyo markii uu tagay Nou Camp noqday dhaawaclow aan qayb ka ahayn safka koowaad ee macallin Ernesto Valverde ayaa la leeyahay haatan waxa uu qarka u saaran yahay inuu ka baxo kooxda Barcelona. lacag rikoor qaali ah ayay suuqi kala iibsiga uga soo qaateen kooxda Borussia Dortmund laba xilli ciyaareed ka hor, waxaana markaa Barcelona leeyahay waa ay ku khasaartay soo xirgelintii Ousmane Dembele. waa hagaag daawadayaal barmarkaana finalka Europe League oo ay caawa ku hartami doonaan kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ka dhisan magaalada London, kaasoo noqon doona derbi ka dhaca magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan. Chelsea ayaa 3-2 ku badisay kulankii Stamford Bridge ee lugta hore ee isaraga horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan, halka lugta labaad 2-0 looga badiyay garoonka Emirates Stadium ee ku dheeshay kooxda Arsenal. Chelsea waxa ay qaaday Europa League markii ay 2-1 kaga badiyeen kooxda Benfica sanadkii 2013, halka Arsenal rikoor looga qaaday finalkii UEFA Cup ee 2000 oo ay markaa la ciyaareen kooxda Galatasaray. Arsenal weli kuma aynay guuleysan koobka Europa League, halka Chelsea ay hal mar haysato. waxaa la hadal hayaa caawa ma Arsenal ayaa markii ugu horeysay ku guuleysan karta mase Chelsea ayaa labaysan doonta koobkan. macalinka tababaraha waa kooxda Chelsea ee Mauricio Pochettino hal xilli ciyaareed ayuu haatan laylanaya kooxda Blueska kadib markii uu 3 xilli ciyaareed ku soo qaatay kooxda Napoli, halkaasoo uu 2 jeer ciyaaray Europa League marna uu ciyaaray Champions League.
dhigiisa la yeliya Arsenal ee caawa iswajahayeen ee Unai Emery kaasoo khibrad badan u leh Yurub League ayaa lagu waramaya markaas inay tahay qatar marka wajahaysa macallin Sarri isagoo tababaro u soo noqday Valencia, Spartak, Moscow, Sevilla iyo PSG ka hor inta uusan tababaro ka noqonin Arsenal. Unai Emery ayaa guulihiisa Yurub gaaray Sevilla isagoo oo kooxda Yurub League ku hogaamiyay 3 jeer oo isku xigta intii u dhaxaysay 2014 iyo 2016. Chelsea haddii aanu ka hormarno dhaawacyada ay markaa qabaan waxaa ka mid ah inay weynayaan xidigooda qadka dhexe ee Robin Loftus-Cheek oo dhaliyay 4 gool oo Europa League dhaawac ayuu ku seegi doonaa finalkan. dhinaca wararka kale waxaa ka mid ah xidiga qadka dhexe ee N'Golo Kante ayaa la filayaa inuu tan buuxa u noqdo inuu kulankan caawa safka koobaad ku soo bilowdo. Arsenal xidiga ugu weyn ee ka maqan waa xidiga qadka dhexe ee Henry Mkhitaryan oo laga soo tagay oo aan kooxdaba la safrin. dhanka rikoorada ciyaaryahanka Olivier Giroud ayaa caawa si gaar ah isha loogu hayaa waa xidiga hore Arsenal waana xidiga haatan hogaaminaya gool dhalinta Yurub League. Eden Hazard lama yareysan karo oo waa xidig muhiimad weyn markaasi kale garoonka. Macallinka Arsenal Unai Emery ayaana walaac ka muujiyay awoodda xilli ciyaareedkan ee Eden Hazard. waxa uu leeyahay Hazard waa ciyaaryahan go'aan degdeg markaasi qaata laakiin waa go'aan halis badan. waxaan markaasi isku dayeynaa inaan ka fogaano ayuu yiri Unai Emery isagoo la hadlayay Mundo Deportivo finalka ka hor. Chelsea waxa ay awoodaa in ay badiso waxaana ugu wacan buu yiri isaga waxaan awoodiisa oo kale ku arkay kaliya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ama Mohamed Salah. anigu ahaan waxaan Hazard leeyahay waxa uu ka mid yahay 5 xidig ee ugu wanaagsan dunida waana awood aan caawa wajahayno. difaacyada Chelsea ayaa caawa u baahan inay la yimaadaan khibrad markaasi iyo sidoo kale awood ay ku joojinayaan weerarka halista badan ee Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang iyo Alexander Lacazette kuwaasi oo la joojin layahay xil ciyaareedkan. labadan xidig ayaa dhaliyay dhammaan 7 gool ee ay Arsenal labada lug ka dhalisay Valencia oo ay ku jirto 3 leydii Aubameyang. tartanka Yurub League waxa ay wadar ahaan markaasi dhaliyeen 13 gool iyo 7 caawin finalka 2019 ee Yurub League. waxaad filataa goolal badan waana halista ka imaan karta weerarka Arsenal haddii aysan markaasi khibrad la soo bixin difaacyada Chelsea. aan fiirino haddaba shaxaha macquulka ee labada kooxood ay ku soo gali karaan caawa kulanka. Chelsea ayaa waxa goolka ugu soo bilaaban kara Arrizabalaga halka difaacyada ay ku baahaysan yihiin Azpilicueta, Christensen, David Luiz iyo Alonso. qadka dhexe waa Kante, Jorginho iyo Kovacic ama Bagley, Jorginho iyo Kante. weerarku waxa la leeyahay waxa macquul ah Pedro, Giroud iyo Hazard inay ku midoobaan. Arsenalna goolka waxa ugu soo bilaaban kara goolhayii hore kooxda Blueska Peter Cech. difaacyadu waa Kolasinac, Koscielny, Papadopoulos, Mustafi, Maitland-Niles halka qadka dhexe ay ku midaysan yihiin Xhaka, Traore halka weerarku la leeyahay waa Aubameyang, Ozil iyo Lacazette. waa sida macquulka ah ee la leeyahay way ku soo gali karaan. wararka ka imaanaya magaalada Baku ee wadankaasi Azerbaijan ayaa ku waramaya in macallinka Chelsea uu aad uga carooday markii ciyaartoy ka tirsan kooxda Bluesku ay ku dhex dagaalameen tababarka kooxda. Sarri ayaa isagoo careysan oo cagadaha tuureynaya waxa uu ka baxay garoonka Olympic Stadium ee magaalada Baku kadib markii ay ku dhaceen difaaca kooxda ee David Luiz iyo goolaliyaha Gonzalo Higuain. tababaraha Talyaaniga ayaa isagoo careysan waxa uu iska siibay koofiyadda isagoo garoonka ku sii dhex tuuray kadibna kaamirada ayaa soo qabatay isagoo garoonka ka sii baxaya oo qaylinaya. ilaa haatan macadda waxa dhaliyay dagaalka Luiz iyo Higuain inkastoo labada xidig ee ka soo wada jeera qaaradda America ay yihiin marka laba saaxiib aad isugu dhow. muuqaal ay duubtay majalada BT Sport ayaa muujinaya David Luiz oo ka careysan Higuain kadib markii xidiga reer Argentina uu qalad ku galay daafaca reer Brazil. dad badan ayaa u arka kulanka finalka inay tahay kulankii ugu dambeeyay ee tababare Sarri ee kooxda Chelsea iyadoo la soo jeedinayo inuu xagaagan kadib markaa dib ugu laabanayo dalka Talyaaniga oo kooxda Juventus la ilin doono. ugu dambeyntii wararyahanka reer Belgium iyo kooxda Manchester United ee Romelu Lukaku ayaa ku sii dhawaanaya inuu heshiis u saxiixo kooxda Inter Milan ee ka dhisan dalka Talyaaniga iyadoo la leeyahay haatan waxa ay heshiis la gaartay kooxda ciyaaryahanka reer Belgium. wararyahanka Belgiumka ayaa lagu soo waramaya in 55 milyan oo gini ugu dhaqaaqi karo kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan. isla markaana waxa la leeyahay mas'uuliyiin ka socda kooxda Inter Milan oo haatan ku sugan Manchester United ayaa heshiis la gaaray ciyaaryahankan kaasoo uga mid noqonayo ciyaartooyda Inter Milan xilli ciyaareedka dambe. 75 milyan oo gini ayay uga soo qaateen kooxda Everton xilli ciyaareedkii 2017 Unitedku. kooxda Talyaaniga ee Inter Milan ayaa ku dhaweeyay qudheedu haatan
in ay ku dhawaaqdo macalinkeeda cusub oo ay ka dhigayaan Antonio Conte iyagoo shaqada ka ceerinaya macalinkoodii hore. Macalinka Chelsea horey u soo maamulay Antonio Conte ayaa Lukaku saxiixiisa waxa uu doonayay in uu soo qaato intii uu joogay Chelsea isagoo markaasi ay United-ku kaga guuleysatay. ciyaaryahankan 250 asbuuci uga qaatay mushaar ahaan garoonka Old Trafford ayaa la leeyahay Inter Milan waxa ay u kordhin doontaa lacagta mushaarka uu qaato waxaana uu noqon doonaa mid ku dagaalama safka hore ee kooxda. United booska Lukaku waxa ay doonaysaa dhowr ciyaartooy waxaa ka mid ah Daniel James oo ay markaasi ka doonayaan kooxda Swansea City. waxaa sidoo kale ay suuqa ka doonayaan dhowr ciyaartooy ka mid yihiin Bisaka iyo sidoo kale Magis Delight oo ay markaa dhammaantood doonayaan inay ku soo xoojiyaan safka kooxda. waxaa sidoo kale ciyaartooyda lagu wado inay ka baxaan United xil ciyaareedkan ka mid ah Paul Pogba oo Real Madrid iyo Juventus lala xiriirinayo. daawadayaal wararkii subaxnimo ee xogta ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. aad baad ugu mahadsantihiin la socodka warka. intaan mid lamid ah dib ugu kulmayna nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.